عاشو سبيد ضوء ماله قرونك مقدسة لقينا وأوجا واعد بريا قرون كاس مالنت لكانوا أنت كاميرا نكاس أسعة النظام كي إلى عليه نجح تورو إقطافة فوض إقطافة فوض ولا يوين هذا فيري ماشي قضية ذا طالو قضية معاه ما تغنى إلما أذا ريالو مدحوينها دلك أمريكا أيا أنا إلهي اللي دبت يقول وندبت تاجيه هذا مركا wuxuu nagu caynayay iyo isaga gaalada taageerto cunsuriyaasha ah oo Soomaalida soo tarxiilayso caynayso waxay nagu caynayeen hadda Asho Speed markuu inta imaado u fiirso madaxay wahay burcid caaw dhiiga uu kacsan qani maxaa Speedaasi warkiisa wada tahay adiga idinka maana ilaahay keena kick reaction aad bixisaan dhalinyaradan waxa idin soo diraan wax Soomaaliya qusay way Soomaha iyo anaga waxna qusay reaction ka bixisaan waa gartay أنا أباهنتي المركات إنا كهذا معنا أدون كانوا وصلوا برعيدو معنا ذو هاي تاي نك إثبات وحلالية وحمحقولة إنه الصومالي يمادو واقرت أول كموس صادرن لكن ساعات مقلي وحلالية هاي وهذا الصعود لكم حروا إنه الصومالي تو واقرت يا المقدسين وهات غلا ساعة من لقول شيء نك أضيع مالا وصومري قري إسكتافة بستولد حتى لما أركن ورتكو قاب قروح بدنا لو سوى دبي نول بقاشو سبيد وحو فائديستي ما دام نكن الدنيا ay ku xiran tahay oo international yahay نول wuxuu uga faa'iideystay wadankiisa meesha uu quruxda badan inuu tuso sawir qurux badan aasho sbid ku gudbiyo sax hadi afrikaanti kala dhan waa ku faa'iideen gabi wadamada uu soo maray Zimbabwe South Africa anaga marka labada noo muhiimsan oo xifaaltan ku jirno وكون إيست أفريقيا نلا كينيا إثيوبيا صح؟ كينيا إثيوبيا هذا بيج دبليو برتة ديجان ويكفى إيديستين ماركتين وعلنا سمستين حيسين عن إنه بعادي هين أي عندها عالم كقدرين كينيا إركبتر يكعس طبعا. أوكي. إنه جيرا إركبتر على صاري قروح ذا ويا أبوي ندران دري كينيا is beautiful bro كينيا وكبحوي إثيوبيا كذلك. وأفانين وح إسقي كران عالم كوجود بينكتان إيه سمين برعيده وح أكتر إنك دونالد ترامب لقطة نوبهايا معابك ودونالد ترامب وهاي الصومالي دنيا كلام ومهايو وأكتر جالن جال لقل نكاس حتى حالي أقدم بيسي وعودها هاي شركة واقصوتك الصومالي وكاربج وقصن وجاهلين وحوم برا وتوجو واقصوتك حلو عودها بعد كور برعبديد دودي يحودي وافشلني قنطاني وحنا كل فرنا أبو بوتاني عيل لفتر كودا دنيا على وينا أو يري على الدنيا ولا قتر ترابا مركع ويل كانوا وحكسوا جيدا وأكتاي أمريكا مركع هدي عم ويمادو أنه إسحلقان وينه أو سيدا دلال كدرس كنا إسماعيل أن سمين وينه أو عيب بعضه دونالد ترامب عنصرياش التغيير oo Soomaalida hadda ay saayana ogtahay shaqadooda inay qabsanayaan aad ni hortay waxa loo baahan yahay organizing in la sameeyo hadda tusaale ahaan madaxweynaha oo Kenya wuxuu dhahay moogta soo dhawaaw dhaamogta sax iyadoo leef ku jiray isbiid wuxuu dhahay yaa waayo dhahay uu ku qasbaya because xanugan wiil yar waa America baa ma keenay Afrika waxa rabaa inaan meel ka tuso Kenya ma aha inay sameeyaan jajaban lahayn laakiin adduunka waxa la isku dilay waxa la dhahayo branding ma fahantaadi maraykanka wax waa meesha ugu qatarsan waxaas qatar ku ah inaad dadka the good side kaaga aad tustid the bad side kaaga aad qarsatid waxay ka mid tahay macnaha ma fahantaadi wax wadamadu ay isku dhaafeen Soomaaliyana waxa u maleysaa the bad side inaan aan social media la wadaagno so arintan hadii inay dawladdu ku lug lahaato waa muhiim oo ninkaas u dhaweyntiisa meelaha la geeynayo wax walba under control ay noqdaan si the good side la nooga gudbo waan ku fahmi karaa meesha ka iimaanaysido ah hadaba adduunka oo dhan hindida East Africa na lagu caayay haduu inta East imaado meelaha jajaban bilaa qoro wadatiyo ciyaal dhagaxyaal tuura la arko sheekadii waxaan ugu dhimanaysaa no government no nothing no police ma fahantaadi كاربج مع الله لكن انا ما املينا سبيد انه ايمانها الصومالي صاحب املينا ارتمت والله الحمد لله نول بقاشو سبيد wuxuu uga faa'iideystay maadaama ninka dunida ay ku xiran tahay oo international yahay نول wuxuu uga faa'iideystay wadankiisa meesha uu quruxda badan inuu tuso sawir qurux badan aasho sbid ku gudbiyo sax hadi afrikaanti kala dhan waa ku faa'iideen
gebi wadamada uu soo maray Zimbabwe South Africa anaga marka labada noo muhiimsan oo xifaaltan kula jirno waa kuwan East Africa nala ah Kenya Ethiopia sax Kenya Ethiopia haddaba big W barteeda dhigeen way ka faa'iideysteen marketing waalanay samaysteen xayeysiin aan inaba caadi ahayn ay indhaha caalamka u direen Kenya helicopter ay kacsataba inuu helicopter la saaray quruxda uu yaabo way dhadaraadare Kenya is beautiful bro Kenya is ku bixi way Ethiopia kadalik waa u faaneen waxa isdhihi karaan caalamka u gudbin kartaan ay sameeyeen burciido waxa ogtahay ninkii Donald Trump ah lugta noogu haya naxaybka uu Donald Trump u haayo Soomaali dunidan kala dhan uma haayo waa ogtahay challenge la galna ninkaas waa gartay hatta xalay u dambeysay wuxuu dhahayay sheekada waa waxna ku dhufanay ugu booteenay ayaga laftirkooda dunida la weynaa oo yiri dunida laga tirtiraaba waa gartay marka wiilkan wuxuu ka soo jeedaa waa ogtahay America marka hadii aan u yimaado oo isxilqaami weyno oo sida dalalka diriskeena ay sameeyeen aan sameeyn weyno oo ceeb ay dhacdo Donald Trump cunsuriyaashi taageerayay oo Soomaalida hadda ay saayana ogtahay shaqadooda ay qabsanayaan aad ni horta waxa loo baahan yahay organized in la sameeyo hadda tusaale ahaan madaxweynaha oo Kenya wuxuu dhahay moogta soo dhawaa uu dhahay moogta isbiid oo leef ku jira isbiid wuxuu dhahay yaa waayo dhahay uu ku qasbaya because xanugan wiil yar waa America ma yaqaan Afrika waxa rabaa inaan meel ka tuso Kenya maaha inay sameeyaan jaban lahayn laakiin adduunka waxa la isku dilay waxa la dhahayo branding ma fahantaadi Mareykanka wax waa meesha ugu qatarsan waxaas qatar ku ah inaad dadka the good side kaaga aad tustid the bad side kaaga aad qarsatid waxay ka mid tahay macnaha ma fahantaadi wax wadamadu ay isku dhaafeen Soomaaliyana waxa u maleysaa the bad side inaan aan social media la wadaagno so arintan hadii inay dawladdu ku lug lahaato waa muhiim oo ninkaas dhaweyntiisa meelaha la geynayo wax walba under control ay noqdaan si the good side la nooga gudbo waan ku fahmi karaa meesha ka imaanayso ah hadaba adduunka oo dhan hindida East Africa na lagu caayay haduu inta East imaado meelaha jaban balaayo qora wadatay ciyaal tuura la arko sheekadii waxa lagu dhimanaysa ee no government no nothing no police ma fahantaadi كاربج الله لكن انا ما ملينا اسبيد انه ايمانها الصومالي صاحب ملينا ارتمد والله الحمد لله يطه سوري كولا سو قرعت ما موسى وكم قلاها ارتا دو ما واي والله الحمد لله سيد الربو جايز معناها سوري كولا سو قرع صاحب دو ما واي ارتا سيد الربو واي والله الحمد لله wiil Kenya horta siyaasadda waxba kama yaqaan haduu dhaho yaa way madaxweynaha Kenya iyo ka Soomaaliya haduu dhaho dadka kama xanaaqayaan oo nin siyaasad yaqaan maaha waana wiil yar kaliya ma aragtay entertainment sameeyo way qof ma aragtay uu xanaaqdayna male xitaa Kenya dhexdeeda aan waxba ka soo qaadin laakiin wiilka yar entertainment buu sameeyaa laakiin wuxuu xambaarsan yahay wadan kasta uu tago sawir aad u weyn inuu ka bixiyo tusaale fiiri hadda markuu tagay Zimbabwe iyo South Africa Black African American soo ma taqaani Black African American waxay ku waasheen why anaga African looga dhigi jiray meel xun oo bush ah why African looga dhigi jiray meel baabacday oo nafta lagu aamini karin Africa America ku qurux badan tahay I'm going Africa millions oo madow ah oo cadaan ah ayaa TikTok waxay soo wada dhigayeen damn I'm going Africa marka waxyaabahan ka hadlaya marka waxay tahay intii dal uu soo maray gabi dhinacooda quruxda badan ay diyaarsadeen waa ay tuseen waayo wiilkan asaga fiiri kuma dhahay asaga meeshaasi geey adaa hogaaminaya indhaa u tahay waaba jaanis fiicanba maadaama indho u tahay waa inaa isu diyaarisaa marka waa inaa isu diyaarisaa waa in aad geysaa meelo qurux badan aad diyaarsatay waa in hab dhaqankaagu uu noqdaa mid degan oo ay nabad ka muuqato waa ogtahay anaga saaxiibow dhalinyaradeena markii la soo dhaweynayo wax bustoolo dharcan cararaaya iyo wax hub la arkaayo iyo waa ogtahay muxuu tilmaamay ma wasaanta waa fahma meesha ka iimaanaysa waxa noo ilaalinaysa image qurux badan waxa rabtaa inuu caalamka noo galo that's what's up
That's what's up. saxanta baro laakiin waxa la rabaa hadda fiiri waa saxanta cunugaas wax laga weydiinayo waxna lama socdo xitaa wadamada ma ahan inay invitation u direen asaa iska tago wixii asaaska imaado asaa invitation soo dirsado asaa iska imaana marka midka markuu madaxweynaha uu soo dhaweynayo xitaa islama hadlin soo uma jeedi sababta hadii madaxweynuhu la hadli lahay ma dhihi lahayn yaa waaye madaxweynuhu asoo la hadlin laakiin madaxweynaha xitaa dana ugu jirto Kenya wadan tourism waaye soo dalada saafir ninkan basically adduunka dhan uu tusaa new generation new wave ku xiraa 48 milyan leefkiisa fiirsanaysa of course you see marka anaga xitaa faa'iido noogu jirto in wadanka noo imaado at the same time qasaarana waa noogu jiri kartaa sababta wadan maqaayada noqon karnaa ma soo waxa loo baahan yahay aniga waxaan ku dhahayba waa inaan riskiga qaado firi faa'iidana way noogu jirtaa qasaarana way noogu jirtaa laakiin at this moment xilliga uu ku soo beegmay waa xilli aan dagaal kula jirno dunida madaxweynaha ugu saameynta badan yaa waaye America iyo dadkiisa cunsuriyaasha ahaa ayaa Soomaalida hadda cod kasta ka cabsan yihiin reality-ga fiican adduunka Soomaalida after Donald Trump dagaal galay Soomaalida cid kasta hadda ka cabsan yihiin xilliga aan ku soo beeganay waa fiicnaan lahayd marka way fiicnaan lahayd in aan beenino caalamka Donald Trump wuxuu noogu gudbiyay oo ah in aan qashin nahay iyo dad aan kala dambeyn lahayn oo isku aamini karin wadankooda sax fiican maalintii aan soo dhaweynaynay Adebayo iyo labada nin kale ee Afrikaanta ahaa ishaq magacooda maxay ahaayeen JK Okaja iyo Etu JJ Okaja iyo Adebayo markaa soo dhaweynaynay wax qurux badan aan sameynay si qurux badan soo dhaweynay run ahaantii waa aragtay caalamka wuxuu ku dhiiraday ama FIFA waxay ku dhiiratay Soomaaliya in lala shaqeyn karo asho speed imagine asoo quslay haduu naga tago maxaa maleynay oo caalamkan aan sawir qurux badan ku gudbin Donald Trump afkiisa waxa u baahanahay in dawladda lala hadlo sababtoo ah anagu shakhsiyadan horta wax fiican aan sameynayso waa kugu amaanaan ragaada tahay wadanimada lagu sheegay intaan waa anu qeyra Jabaanka waa nicba anaga hadda markii hadda Venezuela xataa la soo qabanayay adduunka dhan viral aan ka een sababtoo ah waxay isku soo qaadanayeen si Soomaaliya ay hadda ka hor Mareykan u boostay iyo Venezuela dawlad leh si macna hadda madaxweynaha looga soo gaanjiyay so laakiin waxa u baahan horta codkaana meel dheer u gaara insha Allah waxa rajayna markay duubaan inuu dawladda gaaro dawladdu waa inay image-keena noo difaacdo oo ninkaas hadduu imaanayo lama oge arrinta aan la dhayalsan gacanta lagu qabto waxaana baro adduunka waxaa maqaayad ahayn male adduunka meel walba maqaayad ka jirta laakiin waxaa la rabaa in ninka meelaha shishidan la geeyo wax walba under control ay noqdaan la ilaaliyo Soomaalidan waa iska indha cadeynayaan xataa aysan nabaha dilin oo ninkii lagu soo kala ordino wixii nidaam loo yeelo sida markuu socdo kale dadku ka dambeeyaan iyo oo aan noqonin wax lagu qoslo lagu shactiraysto caalamka ma fahmino waxa la dhahay digital footprint ina la dhahay wixii hal mar ku gala ma baxayaan baro magaca musiibana maalin aad laakiin dawladdu waxa la rabaa barnaamijka inay indhaha ku hayso waa indhaha caalamka nahaya hadda saa sheegtay waa intaasba inta maanta dhan ka hadlay si fiican ila fahamtay marka waxa qaarana ka hadlin maahane baraanu caalamku waa la socdaa wax walba aan daawada ma fahmino adii aad marka aniga waxa way kulamada aan walaalkay tan waa ka naxay marka waxaan iri noo isbeeta inuu noo imaanba hadduu noo imaanayo weyni diyaar garow u baahanahay inaan diyaar garayna u baahanahay mid kale big shout out dhalinyaradii maalimaha wadooyinka xaqaayeen ay bilowday gabadha maaragtay hodaniita maalla misoodan ugu qoran big w waa maasantii in la dhaho way waa maasantii dhalinyaradaas xilli fiican aad ku soo beegantay jikii arrintaas dadka reaction ka bixinayay burcido wadan waxa joogtaa dawlad ka jirto sidoo kale wadan dawlad ka jirto bar waa ogta cawaaqibta ka dhalanaysa banaanka daaqashin ku tuurti sax way xaqiiqaanka bis wax mataraaye maanta hadii galabta la xaaqo oo caawa qashin lagu tuuro subaxii meesha xataa bilicdeedii way lunta dawladda waxa rabaa meelaha camera CCTV in lagu xiro qofkii qashin tuuraay ay ka imaato punishment Allah u naxariiste Maxamed Dheere Allah u naxariiste markuu Jowhar xukumayay inkastoo Jowhar ay tahay caasimada gobolka dhex magaalada ta Muqdisho laga barbardhigi karin bro wuxuu ka mamnuuc bacda qafiifta jaadka lagu xiro maaragtay aad uu ka mamnuucay magaalada dhan nadiif ay noqotay waa arta bacdana Soomaaliya iska tuurayaan maaha so dawladda xal rabaa dadkan qashinka tuura in la xisaabtan mid kale saa waxaan ku arkaa Soomaaliya dabaqyo qatarha dhisan waxa dabaqa bilicdiisa waxa soo saaray wadada waa xitaa fiil 1 2 3 4 dabaq markii yihiin meesha hore hortooda laami xitaa way saari la yihiin you see aniga marka horta taas insha Allah way noo dambeyn doontaa oo 2026 dhalinyaradeena dhaxda qabsan doona oo dawladdu waxa waaye haduu Ilaahay yiraahdo waa ka wada shaqeyn doonaa dalkeena saa u quruxsanee horta tan
إلهي هنو أستر بابا تم إلهي هنو أستر صاحب نكان ودمد وتجا وكسر وضدر أسرع ما ده هو إيمانا هالمد نكان ودمد وتجا يصورده وصادق الصومالي وكرر لكن ماذا جرته وهو ويل كان he's gaining subs subscribe وgain green ويا وعرض أنا وهرب الصعدة أسرع وحرك كم يجلين ودم كوتجيو إنه وكفشل مية إنه ودم كفشل مية وحرك كم يجلين وأنا ربع إنه قطرت أوبرر سبيد نوع عرفتي قطر ما قطرتك قطر سنت وصميها وانك وعيالها قار لما كره حتى عني marka way ku dhici kartaa fikradda hadda saan maqlayo inuu si hoos u raadinayo in uu u bareero Soomaalida la leeyahay qatar waay tag amal anagoo isdiyaarnaa hoosta laga soo gala gabar marka ina u diyaar garowna waa maaleeda ay wadanka muu diidi kartid nin waxa waay caalamka dhan daawadaan way diideen ku leeyahay arono ma aqaan ay wixii lagu sheegay dhab wax u diideen leemaano marka ما صاحب البرامج كأودي أرجرون وعلى ديالسن ماذا عن سوق يسمى جلين مركا وانا قوي صدق لما انتي صدق هذا مركا انت اصلا عن رياكشن كاس كو اكاني يا صاحب يال ان هدو الى رالي كنا قدو waxaan rajeenayaa in arinkaas aan ku fashilmin anagu saaxib yaal nin waxaan ahay jecel horumarka Soomaalida qurbaan ku noolahay qofka markuu qurbo ku nool yahay uu ogaan karaa Soomaalinimada waxay tahay hadda Soomaali ko kale walaalka leh ag joogtaa إسلام إددا يا بيرتاي لكن مركا قرباء إمادين الصلاح اللي زي هذا وصعد بصارن لكن لا هو جويز أنت أنت مركا أساس وفي سيدا كلها بح وطن كا وكل رقم مدويو مركا سأغاني سو ما لما ما رحت معانك لا ذاي مركا صاحب يال وعواي أنا واجعله إنه ودن كي هرمر جارو ugu horeeya ee ku soo noqonaya hadee Soomaali hormar gaarto ee noqoto meel rajo kasta wiil dhalinyaro u leeyahay oo ku rumeyn karo ninka ugu horeeya ku soo noqonaya ani waay ilaahayna noo kaso ma fahanteen marka arrinkaana hal gaarsiyo dawladda hal gaarsiyo halkan waxaan ku jajarnay bal diyaar garow ku sii jiraan hadduu yimaado waa kaas hadduu imaawayna waa kaasa bal ha isa sii diyaariyaan macna arrinka yaa la dhayalsanin ula jeedkeena kaas waay